الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الورى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اهتدى أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه allahu jala wacalaa ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin ah haddana naga dhigay ummadii nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam ummadan ummatu lxabiibi lmustafa waa umma marxuuma waa ummad loo naxariistay tantaqilu min taacatin ilaa taaca dhaacay kasoo guuraysaa dhaaco kale u guuraysaa wa min cibaadatin ilaa cibaaday kasoo guuraysaa cibaada kale u guuraysaa wa min khayrin ilaa khayr bay kasoo guuraysaa khayray usii guuraysaa waa ummad ilaahay uu siiyey tabaaraka wa tacaala fursooyin oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan iyo mawaasim iyo xiliyo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan alxamdu lilah walaalayaal bishii ramadaan ayaa ilaahayna makanayay tabaaraka wa tacaala bisha ramadaan waan soo dhoweynaynaa waxaan leenahay marxaban ahlan wasahlan bisiyaami yaa xabiiban zaaranaa fi kuli caami faqbal illaahuma rabbii sawmana huma zidnaa min cataayaaka aljisaami salafu saalix waxay dhihi jireen allaahuma sallimna liramadaan wasallimhu lana watasallamhu mina mutaqabala rabbiyow noo salim ramadaanka gacanta noo geli noo salim asaga annagana ramadaanka nagu salim ramadaankana naga aqbal rabbiyow asagoo la aqbalay mutaqabal isagoo ah kolka ilaahay tabaaraka wa tacaala ummadan sidaasuu ugu naxariisay tabaaraka wa tacaala mar walba ummadan ilaahay wuxuu siiyey subxaanahu wa tacaala fursooyin oo loogu talagalay inay ka faa'iidaysato fursooyin loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan fursadahaasayki ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilaahay jala wacalaa wuu dooranayaa malaa'igta xaggoodii iyo rususha dadka rusul ayuu ka dooranayaa malaa'igtana ilaahay rusul ayuu ka dooranaa dadkana wuxuu ka dooranayaa rusul warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar rabbigaagii wuxuu doona ayuu abuurayaa isagaana dooranayo ilaahay jala wacalaa wuxuu abuuray khalqiga ayuu abuuray malaa'igtuu ilaahay abuuray malaa'igta wuxuu ka doortay jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil ayuu malaa'igta kale ka doortay
ilaahay jala jalaaluhu wuxuu abuuray jannooyinka ayuu abuuray. jannooyinkaas ilaahay wuxuu ka doortay jannat alfirdowsi. ilaahay wuxuu abuuray khalqiga khalqiga wuxuu ka doortay ambiyada. haddana ilaahay ambiyada wuxuu kasii doortay rususha ilaahay wuxuu kasii doortay ululcasmi alkhamsa. shanta ululcasmi ayuu ilaahay doortay. shanta ululcasmi ilaahay wuxuu kasii doortay ibraahiima wa muxammadan calayhim asalaatu wasalaamu calaa jamiici alambiyaa. haddana ilaahay wuxuu sii doortay nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam. ilaahay jala wacalaa wuxuu abuuray ashuhuura waalayaam, bilaha iyo maalmaha ayuu abuuray. ilaahay wuxuu doortay bisha ramadaan, bilaha kaleeta ayuu ka doortay. weliba bisha ramadaan ilaahay wuxuu dhexgeliyey laylatan hiya khayru min alfi shahr. hal haween oo ay ka khayr badan tahay kun bilood ay ka khayr badan tahay ayuu ilaahay dhexgeliyey tabaaraka wa tacaala. haddaba ilaahay aan ku mahdino walaalayaal, fadligiisa ilaahay aan ugu mahdino, ilaahay aan ku shukrino, nicmooyinka uu nagu manaysanayo aan ilaahay ugu shukrino. ilaahay wuxuu naga dhigay min khayri ummatin ukhrijat linnaas, ummatan ugu khayrka badan oo dadka loo soo saaray ayuu ilaahay naga dhigay. ilaahay baana doortay subxaanahu wa tacaala. towxiidkaas iyo nabiga raacidiisa ayuu ilaahay nagu doortay. wa mima zaadanii fakhran watiiha wakidtu biakhmusii ata'u thuraya dukhuulii taxta qawlika yaa cibaadii wa an sayarta axmada lii nabiya. shaacirkaa wuxuu leeyahay waxa faan ii ziyaadinayo ayaa waxaa ka mid ah oo weliba aan u dhowaanayo lugaheegii meesha rees magaartada ah inaan ku istaago, xidigaha ururta inaan ku istaaga aan u dhowaanayo. waxa weeyaan aniga soo hoosgelidaydii aan soo hoosgelayo hadalkaagii rabbiyow aad leedahay yaa cibaadii markaad leedahay yaa cibaadii addoommahaas dhexdoodii aan soo dhexgelayo ayaaba sharaf iyo faan iyo ammaan igu filan buu yidhi. iyo nabi muxamedna inaad iiga yeeshay calayhi salaatu wasalaam, nebi aad iiga yeeshay. sidaas darteeda walaalayaal, nabigeenu sala allahu calayhi wasalam haddii bisha ramadaan ay soo qaabisho asxaabtiisu u bishaareynayay. aad buu ugu farxi jiray bisha ramadaan dhalashadeedii, asxaabtiisu u bishaareynayay. wuxuu ku dhihi jiray sida imaam axmed iyo nasaa-i ay warinayaan min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canh, markii ramadaan uu soo qaabilo asxaabtiisuu la hadli jiray, wuxuu ku dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam ataakum shahru ramadaan, ataakum shahru ramadaan, waxaa idiin yimid bisha ramadaan. shahrun mubaarak, bil la barakeeyey ayaa idiin yimid. farada allahu calaykum siyaamah, ilaahay wuxuu dushiini ku waajib yeelay bishaa inaad soontaan. tuftaxu fiihi abwaabu ljanna, jannada albaabadeedii ayaa la furayaa. wa tuqlaqu fiihi abwaabu ljaxiim, jaxiima albaabadeediina waa la xirayaa. wa tugallu fiihi maradatu shayaatiin, shayaadiinta kuwoodii madaxa adkaane waa la silsiladaynayaa. wa fiihi laylatun hiya khayru min alfi shahr, bisha ramadaan waxaa ku sugan hal haween oo ay ka khayr badan tahay kun bilood. kun bilood kam tusaawi, meeqay la eg tahay kun bilood? kun bilood waxay u dhigmataa 83 sano iyo 4 bilood. 83 sano iyo 4 bilood ay u dhigmataa. halkaa haween ayaa ilaahay bisha ramadaan dhexdeedii uu dhexgeliyey oo 83 sano iyo 4 bilood ay ka khayr badan tahay. markaasuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam man xurima khayraha faqad xurim, qofkii haweenkaas kheyrkeedii laga xarimo khayr oo dhan baa laga xarimay. allahuma laa tajcalna min almaxruumiin biraxmatika ya arxama araaximiin. ilaahu kuwaa la xarimay oo khayrka laga hoojiyey oo laga xarimay allow hanugu dar. wa fiihi laylatun hiya khayru min alfi shahrin, bisha ramadaan waxaa ku sugan hal haween oo ka khayr badan kun bilood ka khayr badan. waa 83 sano. allahu akbar, 83 sano. haweenkaas haddii cibaada aad ku dhex samaysid waxaad la mid tahay 83 sano adigoo khayr samaynay.
مثلا هوين والببشة كوديدي إلا دمادكيدي هدي تراويح إذا أت هوين والبدكانيسد قرآن كأت أخرينيسد صدقة أتبحيسد خير أسبينيسد هوين والب هذا هوين هذا سيكون أحجر تاوات وافقتي ما شاء الله سأصدرت وحافي عن هوين والبقف كتراويح إنه سنكفكن خير كإسمينتيس إنه سنكفكن لأن هوين هذا صدق كعشاء أما السجال لواتك عشاء يكون أحجرته inaan haween walba dadaal la sii haweenkaas ilaahay uu noo waafajin lahaa tabaaraka wa tacaala haweenkaas haddii khayr adigoo sameynaya ay kugu dhaafto waxaad la mid tahay 83 sano adigoo cibaado sameynaya allahu akbar aan ku dadaalla marka qofkii haweenkaas khayrkeeda laga hoojiyana khayr oo dhan baa laga hoojiyay ilaahow hana hoojinin kuwii leelatul qadriga ka faa'iideysta haweenada bisha ramadaan dhammaanteeda ka faa'iideysta rabbiyow nagu dar nabigeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu dhihi jiray isagoo tilmaamayo soonka qiimihiisa xadiithul qudsi ayaa ilaahay wuxuu ku yiri kama fi sahihayn min xadiith abi hurairah radiyallahu ta'ala an Allahu jalla wa ala ya wuxuu leeyahay kullu amal ibn adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bi amal walba ibn adam ku sameeyay isaga iskale soonka ma ahane soonka ana iskaluhu yiri ilaahi jalla jalaaluhu wa amma nawaluhu wa la ilaha ghayruhu soonka ana iskaluhu yiri ana adoonkeyga ka awaal marinayo maxaa yeelay acmaasha kale dadku way arki karaan as-salaatu ibadatu yaraha an-nas salaad adiga aad dukanaysid waa cibaada dadku way ku arki karaan zakada kadalika waa cibaada dadku way ku arki karaan xajka aad sameynaysid waa cibaada dadku way ku arki karaan khayraadka aad sameynaysid dadku way ku arki karaan laakiin soonka aad sooman tahay xaqiiqadiisa ilaahay unbaa ogaan kara subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay qofka wuxuu awoodi karaa inuu meel ku dhuunto uu wax cuno uu wax cabo kolka inaad sooman tahay xaqiiqadeedii ilaahay unbaa yaqaana subxaanahu wa tacaala saas darteed maadaama soonka sir uu yahay ilaahay isaga u su'aaneeyay tabaaraka wa tacaala soonka ana iskaluhu yiri adoonkeygiina ana ka awaal marinayo wasiyaamu junnah soonka waa gaashaan adduunyada wax allaale wixii xun iyo ma arkaysaa macaasi fawaaxish dhan ayada ka gaashaaminayso aakhirane naarta iyo balaayo dhan gaashaan bay kugu noqonaysaa fa idaa kaana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth ولا يسخب أحد كين مالنت أوصوم يهدي لجاره يوصن أفحمين أفحم يوصن كل باق يوصن خقيلين رفض كلو معنى أيوليه ولا ليال بمعنى الجماع قف كينو حاس كيس أوتاغو بمعنى رفث ولا إرادة إيوه وبمعنى الفحش من القول أو الفعل أما هذا الحن أما فعل حن إنه سمايه أحد كين مالنت أوصوم يهي هذا الحن أفحمين يوصن كهتلين يوصن بوقين قيل وحاسيت الله ما أقول وحال روا قفك صوما ملائكة أوكل إنه نقضه محاجة للملائكة وحنا معنا وحنا معبان ناكنا ملها هذيك نفيري وحما عنيست وحما عبيست حاسكا ومدوانيست مالنتي صفة هذه واسدة ملائكة أوكل إنها تكون مشغول سنات عبادة تسبيح قرآن أخرس خيرات محاجة للملائكة شقدوا دي يسبحون الليل والنهار لا يفترون بيجان هويني مالين بإلهي كتس بيحسدان إلهي بكتس بيحسدان منها بصومان من داهان طيب فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله قف هدي أوعاي كورمرك قف كان صوما قف باعاي أما لدى عالمي هاي راهدو جر النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم حصو وان صومنا هاي راهدو أنا وان صومنا هاي أفكا هكذا ما قلبك هكذا والذي نفس محمد بيده إلهي بانكو دارنا يا نبي محمد نفس دي سيدي سكسقناتي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الله قفك صوما أفكي سحيا وذا سارا قفك صوما أفكي سإسبدلك كو إيمانيو تغيرك كو إيمانيو دورسوك كو إيمانيو إلهي أكتي سووك عرف بديهي مسكي عرف كيسا إلا قفك صوما أفكيس إلهي درتيس أحريهي راشن معونيو وحمعبا يحوغا أفكي إسبدل با كو إيمانيو حياودا سجر إسبدل كاس كو إيمانيو إلهي أكتيسو كعرف بديهي جيد كمسكي غايو كعرف بديهي
markaasaa wuxuu yidhi walisaa'imi farxataani yafraxuhumaa walisaa'imi farxataani yafraxuhumaa qofka sooman wuxuu leeyahay laba farxad uu farxayo idaa aftara farixa bifitrih markuu afurayo afurkiisuu ku farxaya maantoo dhan amarka ilaahay buu gutay maantoo dhan wuu soomanaa soonkiisa wuu ilaashaday qoraxda markay dhacdo uu afurayo timirta iyo biyaha uu cunayo wuu farxayaa muxuu ku farxayaa amarka ilaahay uu gutay addoonnimadiisuu muujiyey wixii loo diray ayuu u dirsamay soom baa la yidhi wuu soomay wuu farxayaa markuu afurayo ciidda markii la gaarana wuu farxayaa maxaa yeelay bil dhan ayuu soomay markaasuu farxayaa farxadda labaadna waxaa weeyaan waidaa laqiya rabbahu markuu rabbigiisa la kulmane farixa bisawmih soonkii uu soomi jiray ayuu ku farxaya qiyaamaha markii uu tago oo rabbigiisa uu la kulmo soonkii uu soomayo abaalmarinteedii la siiyo taana wuu ku farxayaa allaahuma ajcalnaa min ahli lfarax ilaahu dadkaa farxaya nagu dar nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiri idaa dakhala ramadaan markuu ramadaan soo gala ayaa asxaabtiisa wuxuu ku dhihi jiri jaa'akum shahru ramadaan bil ramadaan bisha ramadaan baa idiin yimid tuftaxu fiihi abwaabu ljanna jannada albaabadeedii waa la furaya wa fii lafdin limuslim tuftaxu fiihi abwaabu raxma raxmada albaabadeedii ayaa la furayaa wayunaadii munaadin mid dhawaaqaya ayaa dhawaaqaya wuxuu leeyahay yaa baagiya alkhayr aqbil wayaa baagiya ashar aqsir yaa baagiya alkhayri aqbil kan kheerka doonayow soo qaabil soo jeeso kan qur-aanka akhrinayow soo qaabil kan taraawiixda dukanayow soo qaabil kan xoolaha baxsanayow soo qaabil kan khayraadka samaynayow soo qaabil mawsimkii khayrka ayaa la joogaya soo soco waa la soo dhoweynaya wayaa baaqiya shari aqsir kan sharta raadinayow shardoonka ahow jooji sharta gaabi sharta jooji kan naagaha xaaraanta fiirinayow naagaha ajaanibta oo xaaraanta ka ah fiirinayow indhahaagi laab joog kan salaada dayacayow jooji salaada dayacideedii salaada ilaali kan qur'aanka ka fogaadayow jooji qur'aanka ka fogaadidiisa qur'aanka ilaaliyo aqri tadabbur ku aqri yaa baaqiya alkhayr kan kheerka raadinayow kan kheer doonka ahow soo qaabil ayaa la leeyahay allahu akbar wayaa baaqiya shari aqsir kan sharta raadinayow jooji shartaadi hima ayaa lagu gelinayaa fiir soo ma jeedid adigoo khayr doon ahaa soo qaabil ayaa lagu leeyahay soo soco si himadaadii ay u kacdo mar walba waxaa lagaa doonayaa inaad ahaatid saaxiba himatin caaliya nin hima sarayso u saaxiiba inaad ahaatid waa tii shaacirka uu yidhi idaa qaamarta fii amrin maruumin falaa taqnac bimaa duuna nujuumi haddii aad dhexgelaysid arin oo la doonayo oo la raadinayo ha ku qancin xidigaha waxa ka hooseeyo oo xidigaha kor usii dhaaf kor usii soco inaad ahaatid ayaa la rabaa nin casiimo adag iska leh ayib yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir markaasuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam walilaahi cutaqaau min annaar ilaahay jala jalaaluhu waxaa u sugnaaday kuwoo la xoreeyey oo naarta laga xoreeyey allaahuma ajcalnaa min cutaqaa'ika yaa raba alcaalamiin ilaahu kuwa naarta ka xoreysay nagu darto walilaahi cutaqaau min annaar ilaahay waxaa u sugnaaday kuwa la xoreeyey oo naarta laga xoreeyey wadalika fii kulli layla arrinkaas waana haween walbo ilaahay ummad buu naarta ka xoreynayaa haween walba ilaahay ummad badan buu naarta ka xoreynayaa haween walba oo bisha ramadaan haweenadeedii ka mid ah xataa yanqadiya ramadaan ilaa ramadaan uu ka dhammaanayo wallaahi laakiin waxaa hoogay oo khasaaray wallaahi waxaa hoogay oo khasaaray qof bisha ramadaan soo gaaray oo haddana ramadaankii dhammaaday isagoo loo dembi dhaafin bisha ramadaan dhammaaday isagoo raxmaanka u dembi dhaafin bisha ramadaan dhammaaday walaa wuu khasaaray kaas nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiid imaam axmed iyo nasaa-i ay warinayaan ayaa wuxuu ku yidhi raqima anfu rajulin nin sankiisa ayaa dulooway oo booroobay
nin baa khasaaray oo duloobay. dakhala calayhi ramadaan u soo galay, uma insalakha, haddana ramadaankii siibmay oo dhammaaday, qabla an yugfara lah, intaan loo dembi dhaafin. laa ilaaha ila allah, wuu khasaaray. bisha ramadaan kama faa'iidaysan, munkar iyo balaayi macaasi buu dhex dabaalanayay. soonkiisa shucuur iyo khayraad inuu dareemo, khayraad uu ka faa'iidaysto uma uusan lahayn. ogow haddaba ilaahay kuma dembi dhaafayo. wa anta amaama almusalsalaat, wa anta amaama alaflaam, wa anta fi lqiili walqaali wannamiima. arrimahaas adigoo ku dhex sugan, wallaahi ilaahay makuu dhaafayo. laakiin carid nafsaka liraxmat illah, carid nafsaka libarakaat illah, carid nafsaka linafaxaat illah. ilaahay raxmadiisa naftaadii u bandhig. raxmada ilaahay doondoon, raxmada ilaahay dayday, raxmada ilaahay raaraadi. ilaahay si uu kugu dembi dhaafo, sida ilaahay uu kugu naxariisto, sida ilaahay naarta uu kugu xuraayo tabaaraka wa tacaala. kasoo guur bii'ada macsiyada, kasoo guur ilaa bii'ati daacati u guur. ka guur saaxiibada xunxun, kasoo guur saaxiiba khayr samayso. haya yaa baaqiya alkhayr aqbil, wa yaa baaqiya ashari aqsir. saas darteedii kolka haddii shayaadiintii la silsiladeeyey oo jannada albaabadeedii la furay, jaxiimo albaabadeedii la xiray, maxaa kuu harsan kolka? adiga inaad dadaashid bes, oo naftaadii aad ka guulaysatid. naftaadii ammaara bisuu'ida ah inaad ka guulaysatid oo aad dadaashid unbaa lagaa doonayaa. saas daraaddeedii 3 xadiid ayaan ku furfuranay oo nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam, man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbi. man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbi. man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbi. 3daba bukhaari muslim ayaa wariyeen. nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, qofkii bisha ramadaan sooma, iimaan dartiisana u sooma, rumayn ilaahay buu rumaysan yahay subxaanah, rumayn ilaahay uu rumaysan yahay buu u soomayaa, iyo ixtisaab, ajar raasasho, ajaruu raasanayaa. ilaahay dembigiisa wixii hormaray wuu u dhaafayaa. sidoo kale qofkii habeenkii qiyaam sameeya, sida taraawiixda, tahajudkii oo kale ku dadaala, ma arkaysa, iimaan darteedina u dukada, ajar raasasha darteedina u dukada, dembigiisa waa loo dhaafaya. xadiidka 3aad, qofkii istaaga laylat lqadri, ilaahowna waafaji. laylat lqadr, qofkii istaaga iimaan darteedii u istaagay ajar raasasho, dembigiisa wixii hormaray ayaa loo dhaafaya isagana. bal fiiri marka, qiimahaas inaan ka wada faa'iidaysano ayaa lanaga rabaa. bisha ramadaan walaalayaal, waxaan badinaynaa qur-aanka akhrintiisa. maxaa yeelay adigoo sooman iyo qur-aanka inaad akhrisid waa isleeyahay. bisha ramadaan waa bishii qur-aanka la soo dejiyey. shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan. soon qur'aan, qur-aankana badi akhrintiisa. waatii nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam, alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama. soonka iyo qur'aankaba waxay u ergeynayaan oo u shafiicayaan addoonka maalinta qiyaamaha. soonka wuu hadlayaa, wuxuu leeyahay, yaa rab, ey rab, manactuhu aطacaama washahwata fashaficnii fiih. rabbiyow addoonkaagii raashinkaan u diiday, shahwadiisa wixii naftiisa ay jeceleed, xaaskiisa iyo waxaasoo dhan aan u diiday. ilaahow maanta shafaacadeedii igu aqbal. ilaahow waan u shafiicayaa addoonkan. qur-aanka ayaa imaanaya, qur-aanka wuu hadlayaa, wuxuu leeyahay, ay rabbi, manactuhu nawma billayli fashaficnii fiih. rabbiyow habeenkii inuu hurdo waan u diiday, anuu i akrinaayey, igu dhafraayey, wuu igu dukanayey, wuu igu dhafraayey. rabbiyow waan u shafiicayaa, shafaacadeedii ilaahow iga aqbal. soonkana sidaasuu u shafiicayaa, qur-aankana sidaasuu u shafiicayaa. haddaba meeqaad qorshaysatay walaal inaad dhamaysid bisha ramadaan dhexdeedii qur-aanka? meeqa jeer? imaamu shaafici waan soo sheegnay 6 jeer oo dhammaynayay. anaga maxaa noo qorshaysan? maalintii iyo habeenkii meeqa jeeraad ugu talagashay inaad qur-aanka ku dhammaysid?
inaan qur-aanka ku dadaalna ayaa lanaga rabaa walaalayaal. qur-aanka akhrintiisa inaan badino, xataa dumarka ama hablaha jikada ku jiro, ayagoo jikadooda ku jira ayaa waxay samayn karaan inay tasbiixsadaan, ay nabiga ku saliyaan, ay tahliilsadaan, laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah. ma arkaysa ayadoo wixii la karinayo haddana adkaartii afkaagii hadduu adkaarta u bartane mar walba ayaad adkaarka mar walba iska haynaysaa. kolka waxaan isku dardaarmaynaa, aan isku dhiirigelinaynaa bisha ramadaan walaalayaal, aan ka wada faa'iidaysano, khayraadka aan badino. khayraadkeedii waa ka nabiga sidaasuu ugu bishaaraynaya calayhi salaatu wasalaam ummadiisa iyo asxaabtiisa, inaan ka wada faa'iidaysano. alxamdu lilahi wathanaau lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam. اللهم أهل علينا شهر رمضان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسعة والإسلام والعفو والعافية والأمن والأمان والخيرات والبركات. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه منا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه إلينا وتسلمه منا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر عز وفرج على الأمة الحبيب المصطفى، على الأمة المحمدية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتح.